wixii soo gaaray iyo wixii dib oo soo gaaray iyo wixii dhaawac soo gaaray anaga baa dib ka soo hadli doono laakiin iyadoo nabad qabto way noo imaaday hay asxaabta xaalad macaani asxaabta ma santeena laha inta kula kurbootay bal ma kula taa qof la afduubtay ama qof dil loo geystay qofkan wajigiisa aad ka dareemi karto ama muuqaalka sida aad u aragto intaan arimahaas aan gudagalin fadlan daan ugu cusub tahay nagu soo bir oo kamid noqo bulshada nagu xiran dhanka YouTube-ka ama kamid noqo saaxiibada aan ku leenahay dhanka YouTube-ka arinta daan gudagalno ama arinta aan sida aad aragto ama sida aad ka dareemi karto kilibkii hore aan muuqaalkan soo wada aragnay muuqaalkaas shucuur ahaantiisa waa iska dareemi kartaa waxaan in ay yihiin wax boqolkiiba boqol ah been ah qofkii aqli leh ama qofkii maskaxdiisa fadhido uu hadduu muuqaalka daawado isla markii ama maskaxdiisa waxay ku soo dhacayso in ay arintan tahay boqolkiiba boqol been ah bulshada Soomaaliyeed sida ay u ilbaxeen ama sida ay wax walba ay u wada fahmeen xitaa komitiga waxa loogu soo bixinayaa beentanaga daaya wax walba oo ah oo in ay arintan ay tahay arin been ah iyakana inda adeegooda ama inda adeega iyaka ahaan ama iyaka muuqaalka duubayo in ay wali ku si inda adeegin arintan in ay run tahay ay rabaan in ay dadka ka wada dhaadhiciyaan maskaxdooda laakiin wax lagu farxa waaye boqolkiiba boqol in ay bulshada Soomaaliyeed in badan ay ilbaxeen xitaa ay fahmi karaan qofkii beenta u sheegaya ama jastahan qofka runta ka hadlayo marka eedayo aad u fara badan ama bulsho aad u fara badan ay arintan ka soo wada hadashay si ay arintan ay yakahan ay kuwa qaar ay ku degdegeen ayna rumaysan ama arintan ay markii hore ay dababaaris fara badan ay ku sameeyeen arintaas dadkii ka soo wada hadlay ama dhanka TikTok ha noqotay ama dhanka YouTube ka ha noqotay isla markii waxay sameeyeen sida ay asxaabtooda ama dadkooda ay jastahan u raali galiyaan ay iyaga meel inta muuqaal la soo duubaan ay waxay leeyihiin jastahan waa helin gabadhii afduubka loo geystay waan helneen gabar afduub loo geystay ama gabar la dhibaateeyay ama gabar dib soo gaaray uma eka wajigeeda maana ahan qof jista ahaan aad ka dareemi karto in qofkan qof afduub loo geystay ma garan karno sababaha kalifay in jista ahaan ee marka koowaad ama arintan qofkii ka dambeeyay in ay bulshada Soomaaliyeed ama ay dadka taageerayaasheeda ah in ay arrimahan oo kale ku dhaqaaqaan ama arrimahan oo kale u wanaagsadaan bulshada taageerta gabadhan mid la yaabka ah ayaa ah in ay iyada ahaan ama jisti iyadana ay tahay mid musalsalka iyada ahaan si wado ama jisti ahaan ku taageersan dadkaas waana wax in badan laga qurux badan yahay arintaas ama waxyaabaha noocaas oo kala waana wax jisti ahaan bulshada Soomaaliyeed waqtiyadii dambe ama sanadadii dambe ku soo badan